السلام عليكم. موضوع maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa Ashraf Marwan sirdoonkii laba kaarlaha ee guursaday gabadhii madaxweynaha Masar ninka lagu tilmaamay inuu yahay basaaskii ugu qatarsanaa qarnigii 20aad ku soo dhawaada mowduuca maanta. أشرف مروان وحوا مدحدي ugu sareysay madaxtooyada dalka Masar xiliyadii Jamaal Abdi Naasir iyo xitaa Anwar Sadat waxa uu soo gaaray markii uu xukunka qabtay Xusni Mubaarak waa sirdoon laba kaarla markii ugu dambeysay waxa uu ahaa maalqabeen magac iyo sumcad ku leh Masar dhexdeeda ka hor fashilintii Dr. Ahram Breman qoraagii macalinka ahaa balse kadib degdegii geerida ku timid Ashraf Marwan dunida sirta jecel wuxuu ku yeeshay magac Simon Bakin oo ahaa suxufi u dhashay Britain oo baarakiiskan ayaa ku tilmaamay Ashraf Marwan sirdoonkii ugu weyn ee ebid soo maray dunida qarnigii 20aad iyo inta maanka iyo xasuusta jirtay dunida waxa uu ugu cinwaanay magaciisa sirdoonkii ugu weyn ee qarnigii tagay sargaalkan ayaa ahaa mid lagu sheegay ninkii badbaadiyay Israa'iil dagaalkii weynaa Yom Kippur ee Masar ku qaaday Yuhuudda waa maalin Yuhuuddu lagu jabiyay dagaal ay weli ka sheekayso taariikhda 45 sano kadib Masarna ay weli u dabaaldegto Ashraf Marwan wuxuu ku dhashay Masar sanadii 1944 aabihiis wuxuu ahaa sargaal military oo ka shaqeynaya guutada ilaalada madaxweynaha Masar markii uu jiray da'da 21 Ashraf Marwan wuxuu ka qalan jabiyay shahaadada koowaad ka qaatay cilmiga kiimikada jaamacadda Qaahira waxaana loo qoondeeyay inuu ka mid noqdo ciidanka Masar qaadanayso sanadda 1965 qorshiisu waxa uu ahaa guur siyaasadeed 7 Juulaay 1966 waxaa magaalada Masar ku aqal galay Muna Jamaal Abdi Naasir iyo Ashraf Marwan Jamaal Abdi Naasir oo ahaa nin aqli badan ayaa durbabii fahmay inuusan jecel u guursan gabadhiisa ninkani waxayna bilaabeen Jamaal Abdi Naasir iyo sirdoonkiisa inay isha ku hayaan wiilka sodogga loo yahay dhaqdhaqaaqiisa balse Ashraf Marwan ayaa dareemi jiray mararka qaar jurxumeyn waxa uuna sii waday howlihiisii militariga 2 sano kadib ka hor inta uusan u dhaqaaqin London si uu u bilaabo barashada cilmiga kiimikada ee Masarka 1969 Ashraf Marwan waxa uu booqday London waxa uu la kulmay Dr. Hali Street si uu uga hadlo cudurka ku dhaca caloosha sida ku xusan buugga uu qoray taariikhyahan Howard Blum buuggiisii 2003 uu qoray F of Destruction oo ka hadlayay taariikhdii dagaalka Yom Kippur ee dhexmaray Israa'iil iyo Masar Ashraf Marwan waxa uu ku wareejiyay dhakhtarka sawirka raajadiisa iyo feel dukumeenti rasmi ah oo ay dawladdu Masar leedahay waxa uu ka codsaday in loo dhiibo safaaradda Israa'iil ku leedahay London 3 maalmood kadib wakiil ka socda Mossad oo reer Israa'iil oo loo yaqaan M16 ayaa la xiriiray Marwan oo sii maray Harrods oo ah dukaan ku yaala London Ashraf Marwan ayaa u sheegay safaaradda Israa'iil inuu doonayo inuu la kulmo xubin ka tirsan kooxda amniga 2 jeer uu ka codsaday waa laga diiday ka hor inta aan ugu dambeyn loo ogolaan inuu fariin u reebo Ashraf Marwan wuxuu u sheegay magaciisa wuxuu kaloo u sheegay inuu doonayo inuu la shaqeeyo sirdoonka Israa'iil ee Mossad wuxuu go'aansaday inaanu sheegin teleefankiisa maxaa yeelay maalintii xigtay wuxuu ku wajahnaa Masar waxa uu u dhaafay taleefan lambarka hotelka uu ka deganaa London dhanka kale madaxweynaha Mossad ee Yurub Shamal Goran ayaa ku sugnaa London xilliga Goran waxa uu helay fariinta Marwan oo isla markiiba aqoonsaday magaciisa arinta uu maqlay qaadan waa ku noqotay aad ugu farxay dhanka kale Mossad waxay hore u furtay feel ah in dabinka ku soo geliso Ashraf Marwan sida ugu suurtagalka ah xitaa Mossad waxay haysay sawir Marwan iyo Muna Jamaal Abdi Naasir laga qaaday maalintii arooska 4 sano ka hor Goran oo in waqti ku gaaban yahay ayaa wacay lambarkii Marwan uu dhaafay waxa uu u sheegay inuu sii joogo qolka hotelka taleefanka qolka Marwan ayaa mar kale soo dhacay balse xilliga Marwan waxa uu aaday maqaaxi ku dhow hotelka uu deganaa gudaha maqaaxida uu aaday Marwan waxa ku sugnaa sirdoon ka tirsan Mossad oo korka la socday Marwan mid ka mid ah raggii sirdoonka Mossadka ee ku sugnaa maqaayada ayaa u soo dhaqaaqay dhanka Marwan waxa uu yiri mudana Marwan aad ayaan ugu faraxsan inaan kula kulmo magacaygu waa Misha Marwan oo hadalka qaatay ayaa u sheegay Misha xiriirkiisa iyo waxa uu bandhigi karo reer Israa'iil markii sheekadu halkaas mareysay Marwan waxa uu miiska soo saaray dukumeentiyo muhiim ah waxa uu yiri waa kan tusaale aan idin karo waxba idin weydiisamaya hadda laakiin waxaan filayaa inaan magdhow idinka helo kulankeena soo socda lacag $100,000 Mossad waxa shaki geliyay ujeedada Ashraf Marwan miyuu qorsheynay inuu noqdo wakiil Masar iyo Israa'iil u shaqeeyo oo laba kaarla ah una Israa'iil si xog aan sax ahayn ama sirta inuu si qarsoodi ah dib u la wadaago Jamaal Abdi Naasir Ashraf Marwan oo ga jawaabay su'aashan Misha ayaa ku yiri aad ayaan uga xumaaday xaqiiqdii in Masar laga adkaaday dagaalkii 6 maalmood socday 1967
wuxuu kaloo sheegay inuu keliya doonayo inuu ka mid noqdo kooxda mar walba guulaysato. shirka kadib isla maalinta waxaa safaaradda Israa'iil ku leedahay London kulan degdeg ah ku qaatay Goran iyo Miisha oo ku eegay dukumentiyadii Marwan. waraaqaha ayaa u muuqday kuwo sax ah sida lagu daabacay jariirada Jerusalem Post. maalintaas Goran ayaa yidhi xog sidaan oo aan ka helnay ilo noocaana oo waxa dhaca kunkiisanaba hal mar. muddo kadib oo sargaalkan ka howlgalaya madaxtooyada Qaahira isagoo gudbinaya sirta dalkiisa ayaa muddo kadib waxaa geeriyooday madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir. xukunkan waxaa la wareegay Anwar Sadat. Ashar Marwan mar qura ayaa la dalacsiiyey waxa uuna noqday gacanyarihii madaxweynaha Anwar Sadat. waxa uuna qaabilsanaa la taliye iyo wakiil toos ah kaasoo xiriirada la sameeya madaxda Carbeed. 3 sano kadib shakiga Muusaad ka qabta Ashar Marwan ayaa sare u kacay kadib markii bishii Abriil 1973 oo u diray fariin Israa'iil oo kaga digay weerar kaga yimaada Masar. markii Israa'iil xogtaas heshay waxa ayna dhulka Siinay u dirtay 10,000 oo tangiyada keedka iyo orguuto. laakiin maalinta wax weerar ah ma dhicin. heerka feejignaanta Israa'iil muujisay maalinta ayaa lagu sheegay inay ku kacday qiyaas dhan 35 milyan. markii ahayd 4 Oktoobar 1973 basaasku wuxuu mar labaad uga digay Israa'iil inay weerar ku soo wajahaan dhanka iyo Masar. 8 subaxnimo ee subaxdaas xigtay golaha wasiirada Israa'iil ayaa ku kulmay kulan degdeg ah waxayna go'aansadeen inay ku dhaqmaan macluumaadka Marwan waxayna bilaabeen inay abaabulaan taangiyadooda markaa macluumaadku waa sax. laakiin 4 saac ayaa laga joogaa. Ashar Marwan wuxuu kaga digay in masaaridu kaga soo weerari doonaan qorax dhaca. duulaanku wuxuu bilaabmay 4 saacadood ka hor saacadu markay ahayd 2 duhurnimo. qaybta xigta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.